ka joogta golaha dhaqanka maamulka iyo madaxda gobolka awdal dhammaan qalinjariyaasha maanta halka fadhiya ardayda ah ee digrigoodii qaatay kii hore kii labaad iyo post graduate-ba waalidiinta ku tabcay professor Saleebaan iyo dhammaan dadka la soo qayb galay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta iyo maalmaha soo socda waxaan ka nasanayaa buuqa iyo hawshii xafiiska madaxtooyada waxaan maalmahan la wada doonaa arday badan oo jaamacad ka qalin jabinaya waxaana ka dhigo ugu horeysa jaamacadda Camuud waayo si kooban maxaad uga dhigaysaa waxaan ka tirsanahay bahda Camuud maanta waxaanu hambalyo gaara siinayna oo aad iyo aad loo hambalyeynaya oo inta halkan joogto guushii weynad haya professor Saleebaan waayo waa macallin maanta hor taagan ay hor joogaan laba madaxweyne uu soo tababaray isagu waa dhifiye naadir adduunka macallin ama professor ama jaamacad u hesha laba madaxweyne soo saartay oo weliba professor soo saaray uu joogo inay kulmaan waa dhifiye naadir waana extarka lagu hadaa marka ilaaha ku siibay Saleebaan ee maanta halkan soo keenay isaga iyo daahir yaara kaalin oo wada naga dambeysay oo hadlahay arday sheegay iska dhowey aniga naga yahay laakiin aanu Saleebaan soo dhalinyaro rag la bilaabay ahaa waa ilaahay mahadiisa saddexdeena way tahay caalamkana way tahay rag badan oo kale way joogaan muddo kale oo halkan ka soo baxay taasi waxay idin sheegaysaa ardaydiina maanta qalin jabisay iyo kuwa hore iyo kuwa iman doonaba halka waxa inankii hadlaayay magaciisa uu ka sheegay af Soomaali aad u qurux badan iyo ereyo muhiim ah oo ballanqaad ah oo jaamacaddu waa jaamacadda haldoorka iyo hogaaminta professor Saleebaan intuu shaqeynayay macallimiinta way soo saareen idinkuna u dayirtaan baa la idinka rabaa annagana faanbayno noqonaysa taariikh haddaa soo saartaan dad badan oo sida maanta ardayda Camuud ka baxay haldoor u tahay wada haldoora idinkuna awdada markaa mar jirtay dhowr qodob oo halkan la yiri waxaan ka xawahay dhanka ka faraxsanahay wasiirka caafimaadka oo halkan waxaan ka xumeeyay waxa uu sheegay inuu durustiisu jaamacadda qaato oo kiis la isaaraya adaa inaan ka kaxeeyo jaamacadda laakiin waxaan idin sheegayaa inuu degree halkii uu socday ka hayo ilaa imikana uu ku hayo inuu yahay nin ka soo baxay Camuud oo shaqadiisu ilaa maanta sidii loogu igmaday oo u wado taasina farxad bay gelinaysaa marka labadaas arrintaas ay tahay talabaad ina caaqil Ibraahim Bijaale waxaan kula hambalyeynaya inay halkan isku sharaxday madaxweynenimo haddana bahda Camuud dhammaanteen ku hor iyo ku yar iyo ku weynba waxay noo faara inay gabar bahda Camuud sharaxday waxaanay xaq inoo leedahay inay wada taageero Soomaha waxaan soo sheegaya mas'uuliyadda halkaas siyaasadda la yiraahdo ee la gaaro ee wasiir laha madaxda dalka hogaamisa inay ugu yar tahay inta gaadhay wasiir Umar shaqadiisii iyo tacliintiisii uu ka kala tuurtay inta ka go'day kooraskiisii jaamacadda ee ka go'day wadadii u ahayd oo carruurtiisa ka go'day oo waqtigiisa ka go'day oo dhaqaalihiisa soo galay ka go'day intaas oo ka go'day waxa u bedeshay intaas oo dhiba waxa u bedeshay intaas oo canaana waxa u bedeshay soo jeed waxa u bedeshay canaan waxa u bedeshay eedaan oo hayl la saaro waxa u bedeshay xageed qabatay maxaad haysaa hawshaasay leedahay marka waxaan soo dhaweynayaa barwadi madaxweynaha anagu bahda Camuud iyo ciidaan helo ku garab taagan oo diyaar garow intaas oo qoyskaaga naftaada ka go'aysa ardayga hadda ay hadalkiisa wuxuu ku soo gabagabeeyay markuu ereyo suuban oo aad u cilmi ku dhisan oo af Soomaaliga uu si heer sare uga hadlay madaxweyne ku tashan waxaan nahay ciidan qaranka u soo baxay oo hawsha ciidan qaranka la soo diyaariyay waa gudoon waxaan ku sayaa qaranka maanta ku baahay halkeen kaga hagna hawshu way badan tahay waxaan sheegayaa dadka dawladda waxa laga qiyaasaa qarni walba miisaaniyadeeda
halkay wax marinayaan waxay soo saaraan miisaaniyadda dowladdeed haddaad dib u raacdo ilaa tii u horreysay oo imika dhowr iyo labaatan sana mar walba waxa u badan oo dhaqaalaha ugu baxan adduunku ku baxaa dalkeena waa nabadgelyada way soo yaryaraatay konton bay ka bilaabantay boqolkiiba konton boqolkiiba afartan way soo socotay labaatankaa sannadood maanta ta soo socotay iyo tii hore waa boqolkiiba 8 iyo 30 baa nabadgelyada ku qoran mar haddaad aragto dalkiisa dhaqaalihiisa uu ku baxay xagga sugyurtiga iyo ciidamadana dagaal buu ku jira horumar ma samayn karo markaanu ku qoray nabadgelyada iyo hawlaheeda boqolkiiba 8 iyo 30 maanta ay taagan tahay caafimaadkeenu waa boqolkiiba 6 weli wax ka dhimayeen boqolkiiba 5.9 tacliinteenu waxaanu ku dadaalnay inuu 8 gaadhno 7 waxba maraysa boqolkiiba waxaa tihiin raggaa mutacalimiinta ah bal dalkaasi hadday xag u socdo haddaba nabadgelyadu maxay ku baxdaa hor ciidan iyo military ma iibsano wuxuu ku baxaa dagaalka deegaamada dhexdeeda weli waxaynu ku jirnaa xaaladii ka soo qabashadii dagaaladii dhacay dadku isma aaminsana reerihii walaalaha ahaa ee weedeganaa ee aan warigooda isqadaroofin ayaa hadday ijaar ku urmaan qoryiisoo guranaya hadday isku dhacaan deegaamadii ma bogsoonayso oo waxa dhibaato keenay taban isgaarsiinta casriga ah oo khasaaraheeda iyo faa'iidadeeda leh markay reerkii istiraan awal hore maanta hore hadday islaayaan qof yar iska dilayeen imika waxay soo adeegsanayaan rub casri waaweyn waxa intaa dheer taladii odayaasha imika ninkii halka hadda xaaji miisaan uu ku soo celiya geedka ee inta afar daacad oo ilaahay taqaano wax kala doonayso timaado ay arinta war maxaa inoo dana oran jireen waxaa way noo taliyaa baalkan internet Australia Canada kawaran kamir qaba ka professorka ah ku anta ka lahayn mid walba uu soo talinaya dadkeenu waxa qabaan fikrad ah qofka dibadda jira inuu aqoon badan hayo wanaagsan way jiraan rag waaweyn oo culimaa oo adduunka ka qayb galay oo dibadda wax ku bartay oo talada soo wada wax u baahan soo daayay kuwii talada laga ilaalin jiray haddaad bika furto 9 war oo aan muddo meel jiray allahay badan ay qofka jiray dadkeena u badan reebi ama dhaqankeenu wanaagsanaa haysta ee ahayd wargalanaya war laga qaato isma laha qof baa beeshiga iyo wax la soo gelnay warkii baan wala qaadanaa warbar ku hormaraya dagaalkii ma bogsanayo ma dagaayo marka waxaynu u baahanahay si aynu horumar u sameeyno aqoonta aqoonyahanka cusub ee ka mid yihiin kuwa hore waa inaynu ku fikirno sidee baynu khilaafaadka u yareyno sidee dadkeenu isu aaminaan sidee dadku isku dhacayaan oo waa bini'aadmo oo iskhilaafayaan markay iskhilaafaan loo daweeyaa ee looga saaraa aqliga waan garanaya waan u jeediyo bariyo caynkaas ahayd ee qofkii wuxuu ku adeeg kala dhageysanayay halka inuu xoog saaro ayaa koowaad oo diiday waxa la mid ah in maskaxda wax laga bedelo maanta xabsiga dadka dhow jira 2500 maxbuus weey dadka 40% waa dhalinyaro da'doodu ka yartahay 30 dhammaantood waxay ka yimaadaan magaalooyinka waaweyn ee tacliinta iyo dhaqaalaha leh Hargeysa Boorama Burco ayuu badiyay waliba waxay badayeen haddii la eego da'da sanadka hore jaamacadda iyo secondary-ga iyo intermediate sanadka u dambeeya 40% ka maxaabiista ah marka laba meelood oo qaybiyo nus baa ku jiray secondary-ga sanadka koowaad ka labaad ka saddexaad ilaa jaamacadda iyo wax lamid maxaa dhacay xadaaradan cusub ka keentay dhibaatada caruurtaasi qofka dariiqa maraya waxay ku dilayaan mobile hadday kubadooda ciyaaraan way istilayaan midii isu qaadanaya hadday dhaafaan xaafad bay u dagaalamayaan xaafadihiina markay labada carruur ay istilaan halka xaafadu isku mid ka aan jirtay reeraha kala baxaya dabeetana booliiskii baa la kordhinaya oo ciidan baa la kordhinaya caqligu wuxuu noqday carruurta oo si fara badanaysa waalidkina shaqo badan ma hayo booliiskii ardayda isku xiiqeen jeelashina way buuxaan sidee baynu u bedelnaa maskaxda carruurteena technology-gana khalkhalinayo war kale aan disinaya dalka Ingiriiska UK dadka ku qaxay Soomaalidu guud ahaan magaceeda waxay ka mid tahay ajaanibka ugu tirada yar leh tira ahaan waxa leeyahay waxa loo qaxay iyaga loo moodin inay badan yihiin marka la isticmaalo caalamka dadka ku soo qaxay waa kuwa ugu tiraya nasiib darro bableeshka maxaabiista ku jira Soomaaliya ugu badan
waxaan ka rabnaa dhammaantiinba qolo walba hawsheeda inay research ka samayso see mushkiladda loo xaliyay dhakhtarradu inay caafimaadka research ka sameeyaan injineerada guryaheenu maxay u doonayaan in laga sameeyo qolo aan ku farxado maanta magaceeda aan maqlay soo dhawoonayo aan isku sii bahanahay siyaasadda iyo horumarkana waxaan ka doonayaa inay attitude-ka dadkeena see loo bedelaa oo dee ritoonka lagu socono wuu adkaadayee sidee baynu behaviorka dadkeena u bedelaa maskaxda oo u soo celaa dadkeenu inuu is-aamino walaaloobo markaa aqoonyahanka waxa leh ha u kaceen sidee maskaxda dadkeena loogu soo celiyaa waxaad qabsi isku qaadashay inay wax wada lahaadaan oo u yaranaa kharashka naga baxayo gurmadka iyo beeraha iyo dhibaatada taala iyo dhibashada maalmo taagan ee bilaan micnaha ah ee bariya galbeed bare taas aynu u baahnay haddaynu sawkii soconno dee waxaynu wuxuu ku soconayaa gurmad iyo qaba iyo gurmada soconayso maanta intaas ayaga tusaale haddaad tidhahdeen waa gurmanaynaa waa idin soo dhaweynaya waa idinku dhaadanaynaa dee hogaankana waa idin dhiibaynaa ila waa la isu dhiibaya oo kolba niba nigu dhibaya saleeban noo dhibayna waa idin sii dhibayna haddii la idhaahdo waxaa kaloo ku faraxsanahay sheekhii halkan inuu akhriyay wacdi tacliinta iyo waxtaridda iyo iskooliddu waa da-da inamadiisu waxay noqonayaan jiilkii afraad ee tacliinta maanta ka soo baxa halkan ku yimi professor salaam baa jooga anigu soo barbaaray anna isagoo yaroo quraanka xaafadaan rag ka bilaaba carruurta war carruurta iyo saaqada war quraanka loogu dadaalo markii dambe yoon diyaarad iyo wax la raaciyo jirna arigan arqaata la sii saaray uu ku tagay maka oo ku soo bartay sida nimadii maanta ka soo hirgelinahay inta uu inoo soo wada joogo waa afar da'ood waa ilaahay maadi daada sharaadna waa miisaaniyo qoladii markii gaariga wata carruurta soo qaadaysa marka walaal noloshu waa caynka inaynu taan u diyaar garowno aan dadka u dhistaan tan iska ilaalino waxaan ku soo koobayaa ugu dambeeya dhammaanteen isna maanta waxa mahadnaq fagaarahan inaan uga mahadnaqno oo waliba anigu madaxweynaha qaranka aan u mahadnaqay inoo taagan mudane madaxweynihii hore daahir yaana kaay in badan baa odhan sokii mucaaradka aad ku ahayd aad ku sii jirtay waxaan idin sheegayaa dalku inuu nabad yahay oo aanay siyaasad laga baqaan jirin oo aan la dhegeysan waxaana ay wadaan miidiyaha iyo buuq waxay taasina tusaysaa imaatinkiisa iyo ereyga aan odhan doonaa dalku inuu nabad yahay maskaxiyan iyo siyaasiyan in la murmo oo arrin isku qabtaan qoysku ay isku qabto macalkii ardaydu is qabtaan dadka dalka siyaasadda hogaamiyana ay isdhaliilayaan ee aanay jirin cayb iyo kala tag Somaliland iyo odayaashiisa daahiriya kaar wuxuu ku sutay ardayshii 9 sanadood oo mucaarabada oo kulmay madaxweynaha dhabaradiisa waa ku mahadsan wuxuu ku mahadsan yahay waa madaxweynihii laga helay ee raggii xisbigiisa la joogay ay BBC ka sii daayaan aqbalin baynu ee intuu soo baxay waan aqbalay ee kaga tagay waa taariikhdu kaliya maanta leeyahay waa taariikhdu walba u taalayeen oo siyaasadda soo galay ku jiray xilka taaganba waa ogeydeen xisbiyihii xogeeyay xisbigiisa iyo afayeenkiisii ayaa idaacadaha way ka sii daayay aqbal bina waxa soo baxay afar saacad ka badan isaga soo bixin waan aqbal waa taariikh u leeyahay oo xusuus badan taariikhda u galaysa aynu kuna amaanayno kuna xusuusanayno marka laga reebo 9 sanadood wixii soo qabsado aad iyo aad baynu isgaan u mahadnaqaynaa dadkuna intay nool yihiin waa inay wax isu qiraandeen marka aan toolaysa maari maayeen mana soo bahlo maayo waxaan ku soo gabageenayaa hambalyo qaranku wuu idin sugayaa odayaashana sana wuu idin sugayaa dadaalkiina waa ku mahadsantihiin idinka waalidkiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan subscribe saar si aad u hesho muuqaalo dheeraada sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barta aanu ku leenahay Facebook fadlan si aad ugu xidhnaato like saar bogga Twitter-ka ayaa sidoo kale aad nagala socon kartaan si aad u heshaan sawirro iyo muuqaalo dheeraada muuqaalo qoraallo iyo sawirro dheeraada waxaad kala socon kartaan mareegaha www.somalilandnation.com ama www.madaxtooyada jsl.com